السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأنا سلامي سلام كتب برامج كان وبرامج كان يكسب سنة بربارين تعرورتا بربارين تعرورتو ولي episode كلابات weli marka maanaan gudagelin oo markaan gudagalno dee waxaan ka hadli doonaa si practical aan ka hadli doonaa markay noqoto barbaarinta caruurta cunuga halka jira sidee loola macaamilaa cunuga 2 sano jira sidee loola macaamilaa cunuga 3 sano 14 sano 16 18 sano ilaa 20 sano korinta marka waxay ku xiran tahay ama cunuga markaad barbaarinaysid hadbadaad uu jiray ku xiran tahay barbaarintana sideedaba waxay leedahay tiirar ay ku taagan tahay shay walba oo wuxuu leeyahay aasaas iyo tiirar uu ku taagan yahay tiirasha marka barbaarinta caruurta waa dhowr tiir tiirashaas marka haddii hal tiir uu liico oo kuwa kalena way ka daba leecayaan oo waa wax isku xiran waxaa loo baahan markaa inuu waalidka fahmo tiirarka uu ku taagan tahay barbaarinta caruurta dee sidaan ognahay dee waxaa waaye barbaarintu halka sano cunuga marka uu jiro iyo kan 5 sano jiro isku mid maaha markay noqoto barbaarinta markay noqoto cunuga 5 sano jira iyo cunuga 10 sano jira isku si looma barbaariyo isku si loolama hadlo isku si loolama dhaqmo isku si loolama xaajoodo cunuga 10 sano jira iyo kan 18 jirana isku si loolama hadlo hadalkooda iyo dhaqankooda iyo la xaajoodkooda iyo baahidoodu way kala duwan tahay marka waalidiinta Soomaaliyeed inta xoogaa uu fahanku uu ku yaryaryahay si waxa waaye inayna fahansaneen cunuga mar alla marka uu koro barbaarintii halka sanaad sida doola macaabilisay ku barbaarinaysa 2 sano markuu gaaro cunugu ka koraya halkii sano wuxuu u baahan yahay marka qaab kale oo cunugii loola macaabilo hadalkii haday noqoto baahidii ka turjubaankeeda haday noqoto dhiga adeegii iyo madax adeegii haday noqoto de 5 sano markuu gaaro cunuga 10 sano uu ka sii duwan yahay oo cunugu sii koraya de sadogtihiin waalidku wuxuu fahmay cunugu markuu halka sano jiro wuxuu ka koray caanihii uu cabay waxa laga yaabaa in laga bedelo markuu 2 sano jiro waxa laga yaabaa dharkii uu xiranayay funaanadii sarwaalkii kansarkii filis kansarkii kastumihii iskalsihii kabihii in laga bedelo cunuga markuu 5 sano gaaro sariirtii joodariga ku seexanay waa laga bedelay cunuga uu koray markaa dharkii waa laga bedeli caanihii waa laga bedeli hal sano iyo 2 sano markuu joogo xafaayadii waa laga jarayaa waalidku wuxuu fahmay markaa cunuga markuu da walba uu korayo in uu dharkii ka korayo cuntadii ka korayo oo cunto kale u sii korayo caanihii uu ka korayo maaragtay waxayna marka waalidka Soomaaliyeed inta badan ayna fahmin cunuga mar alla markuu dharkii iyo cuntadii iyo wixii dhama uu ka koray barbaarintii iyo qaabkooda loo macaamilisa markuu halka sano jiro asii intaasna uu ka koray wuxuu baahan cunuga markuu 2 sano jiro jawi kale uu galaya 5 sano markuu galo jawi kale uu galaya walba daada ka sii weynta marka waxay leedahay barbaarin loogu talagalay leedahay marka waalidku waa inuu la socdaa cunuga markuu 5 sano jiray iyo 10 sano markuu jiray inaad cunuga inta gudoodin iyo qayli iyo saas shalay oo la macaabilisay inaad cunuga oo la macaabilin cunuga markuu 10 sano jiray markuu 18 sano jiro haday wiil iyo gabar tahay way kala duwan yihiin oo 10 sano markuu jiro saad oo la hadlaysay uma baahnid inaa oo la hadashay markay gabadhan wiilkii 16 sano jiro waa ungdum hormonkiisa isbedelaya jirkiisa isbedelaya physical ahaan isbedelaya codkiisa isbedelaya baahidiisa isbedelayo wuxuu rabaa cunugii identity yani aqoonsi raba markaas oo kale baahi badan hayso waalidkana marka waxa la rabaa cunugii inuu la jaan qaadi karo cunuga baahidiisa iyo su'aalaha faraha badan ee maskaxdiisa ka guuxayo waalid soo jeedo oo
dee fadhi ku dirir iyo meelo kale aan ku maqnayn u baahan yahay dee cunugii ku mashquulsan oo dee cunugga su-aalaha uu rabo kaga jawaabo baahida cunugga uu qabo cunug waalid fahmayo waalidkan waxaa loo baahan yahay inuu noqdo laba rool inuu isku qaato marna uu waalid noqdo marna waxaa loo baahan yahay inuu noqdo saaxiib uu cunugga dee uu ku sirbixi karo wuxuu rabo u sheegi karo adoon dee weliga xitaa football daawan cunugga daraadiisa inaad footballka u daawan kartid ayaa loo baahan yahay cunugga haddii uu dee gameska ciyaarayo hataa maaragtay aamin uu ciyaarayo intuu qof kala raadsan lahaa oo saaxiib kala raadsan lahaa inaad ayaga saaxiib la noqotid oo dee controlka kala qaadatid aada la ciyaartid dee cunug marka waxaa rabaa inaad waalidna noqoto saaxiibna noqotid oo cunugii mar qaarkood dee Manchester United iyo Real Madrid iyo Champions League iyo Premier League aad cunugii kala sheekaysan kartid oo of course aad weli football ma taqaanid hobbigaaga maaha laakiin cunug 16 jir aad haysato dee asaga waxa ay ku weyn tahay oo maanta dheemaan Ronaldo wasaano walaalkiis wasaaso timuhu saa u jirtayo dharkaas u xirtaayo dee waxaas uu asaga xiisanaya dee maaragtay ku weyn moogtahay waxa cunugaaga ku weyn waa in aad kugu weynaato wixii marka aad sixi kartid oo dee khaladaadna for example Janis waxaad u helaysaa cunugga aad ka saxdid dee wixii saxana dee maaragtay dee dhalinyaranimo iyo iska tahay oo dee hobbigiisa ay tahay aad wixii aad kala qayb qaadan kartaa kala qayb qaadatid korriinku marka saan sheegnay hal sano ka bilaabi doonaa insha Allah ilaa 18 sano halka sano ka bilaabayna 2 sano u gudbeyna 3 sano u gudbeyna intaas waxaad arki doontaa marka inay baahiyooyinka kala duwan yihiin waxaan dul istaagi jirnaa marka tusaale ahaan practical oo wiil iyo aabihiis isqabtay oo kale oo dee maaragtay arrin isku qabtay cunugga hadduu saa u dhaqmo seel raba waalidkii inuu u dhaqmo marka uu barnaamijkaas u xalliyo haddii uu cunugga sidaa u dhaqmo oo uu rabo for example inuu saaxiibo ku xirmo oo banaanka aado inuu rabo oo su-aashiisa ay badan tahay baahidiisa badan tahay see la rabaa marka inaad adiga oo la macaabishid waa inuu waalidka marka asaga inuu dee waalid soo jeedo oo dee aqoontii iyo xirfadiiba leh oo baahidii iyo wixiiba la jaan qaadi karo su-aalaha cunuggan uga jawaabi karo inay tahay aada muhiim u tahay ilmo fara badan oo dee guriga ka cararay way jiraan oo 12 maanta ungdom waayo guriga ka cararay kuwa guriga ka maqan yahay because su-aalihii uu rabay wax kaga jawaabayana ma leh baahidii uu qabayna dee waalid ka jawaabi kara ma laha ama laga yaabo dee waalidkii markuu cunugga 16 jir gaaro dee jirkiisii iyo wixiisa dhan isbedelayaan iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa isbedelaya in markiiba lagu shaambadeel yiraahdo cunugga uu dhiga adag yahay oo waa caas waalideyn mar haddii timbaraha lagu dhajiyo cunuggeena dee adigana waxaa waaye wanaagii xumaan wuxuu sameeyo xumaanay kula muuqanaysaa cunuggeena wuxuu dareemayaa dee in hoste yacni condition fiican oo gurigii oo inayna jirin qof uu saaxiibo hadalkii uu la wadaagay baahidiisa inayna jirin qof su-aalaha uu qabo cid kaga jawaabaysana inay jirin waa iska suurtagal waxyaalaha inta badan marka ungdomka ay guriga kaga maqan yihiin dhalinyarada ay guriga kaga maqan yihiin oo saaxiib iyo u raadsanayaan inta badan saasaa ugu wacan marka saa daraadeed waxaan rabnaa marka episodeyada way socon doonaa insha Allah si practical aan sameyn doonaa ilaa haddii ku sameeyo hay-adaha caruurka laftigoodan la xiriiri doonaa insha Allah laftigooda aanu interview imtixaan aamin su-aalo kasoo qaadi doonaa insha Allah sidee rabaan ayaga ilmaha in loo koriyo maxaa ka khaldan dadkan ajaanibka ilmaha korsanaya maxaa ka khaldan dadaal intee leegay ayuu hay-adaha caruurta ka geysteen inay dadkii kuushash siiyaan oo tababar siiyaan oo ay saxaan qofkii wixii ka khaldanna laga joojiyo wixii saxan oo dee dhaqankiisa iyo culturekiisana lagu sii taageero marka waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan tahay juhdi badan oo u baahan tahay wada shaqayn fara badan oo u baahan tahay episodada insha Allah waxaan bilaabi doonaa week dambe soo socda insha Allah ayaan bilaabi doonaa laakiin hadda dee warbixin guud oo barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay iyo carqaladaha guud iyo challenge-ka faraha badan waalidka haysta iyo waxaas baan marka hore inta badan aan ka wada hadli doonaa insha Allah dee insha Allah ku taxnaad hadduu Ilaahay yiraahdo episodyadan iyo kilibyadan insha Allah dee waalid bana dee oo u baahan inuu maanta lagala qayb qaato haddii su-aal qabo iyo haddii kale haddii iskuulkii ku saabsan tahay hadduu barn iskuulkii hadduu ungdom iskuulkii yahay haddii uu yahay maadooyinkii hadday yihiin waxaasoo dhan dee for example dee waxaan anaga dee waxaanu ka shaqeynaa iskuulaanu ka shaqeynaa waxaan diyaar u nahay dee wixii su-aalo private loo soo diray inaan ka jawaabno
caqabadaha waalidka haystee for example uu fahmi layahay systemka iskuulaadkii waxaasoo dhanna inaan anaga ka taageerno oo ilaahay dii ku sameeyo guriga daan si soomaalinimo iyo si macalinimo iyo si waalid ahaanba inaan u garistaagnaan diyaar u nahay insha Allah wada shaqeyntana halkaas ay ka bilaaban doontaa insha Allah episode-yadana 1 iyo 2 iyo 3 4 5 yeelan doona insha Allah halkaas aan ka wada soconi doonaa insha Allah dila wixii su'aal la qabo email-kayga meeshaas ugu qoran yihiin telephone number-kayga ma soo soo diri karaa clip-kana waa la share gareyn karaa si waalidiinta kale Soomaaliyeed ee wadanka Norway la degan si ay u clip-ka u gaaro markaan bilaawno casharada ayaga laftigooda kaga faa'iideystaan wixii su'aal ay qabaan ay toos noo soo weydiiyaan insha Allah intaas aan isku ognahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.